dhammaantiin saaxiib la aad baa idin salaamay ma ogtahay inay jirto cryptocurrency free ah maanta waxa la muuqaalka inaan uga hadlo very interesting topic loo yaqaano airdrops cryptocurrency saaxiib waxay leeyihiin coinan free ah coinanka inteena waxa aan la soo gelin exchange waaweyn sida Binance iyo crypto.com iyo ama waladada waxa way Coinbase waxa jira saaxiib xilli uu mashruuca markuu bilow yahay dadka iskala koonkaasi si bilaash bay u qaybiyaan si waxa way u helaan waxa dhigana waa mataqaana waa marketing strategy ku saabsan waxa way cryptocurrency marka waxaan raasahay muuqaalka maanta inaan kugula sheergalayo airdrop-ka muxuu yahay sidee uga faa'iideysan karnaa marka waxaan rabaa inaan isla qaxin airdrop-ba qaybaha loo qaybiyo waxa way airdrops-ka sidee adiga oo qayb qaadan kartaa crypto free ah hadii lagu sheeko waran dabcan waxaas leeyahay qof walba wajah inuu ka faa'iideysto faa'iidooyinka airdrop-ka leeyahay muuqaalkan saxbina kula sheegarayo sidoo kale waxaan rabaa risk to consider qasaaro leeyahay airdrop-ka oo waxa way scam buu leeyahay sidoo kale muuqaalkan rabaa inaan kugula wadaago iyo ugu dambeynta gabagabada saxabiyaal airdrops waa mid kamid ah waxa way topicyada waaweyn hadii aad soo dhex gashay industry-gan ama community cryptocurrency saxib hadii aad jeceshahay inaad muuqaalo badan aad ka heshay cryptocurrency waa inaad soo follow garee page-kan sidoo kale soo subscribe garee YouTube channel-keena dabcan كورسنا وكذي أنا كريبتو كارنسي هذه أتعاش إن أوبرت وحوي أدو بلارا مور ديتيل دي بايفا إن شاء الله وبسيط هي بقول لك بشدتكم هالكاس كورس إن كريبتو كارنسي أو صبير وهاك سحب المركوام إير دروب أنا سلقة هنا مركور إير دروب سحب الواحد لها كريبتو كارنسي فري أبالو سينيا سدا دريم كريبتو إير دروب بس واحد لقى سطورية هو سيمر كريبتو كارنسي بفرق نوعنا طبعا كوينن كارت الله والله قبل قانون وسنترلايز سحب القانون وسنترلايز كوينن غير واحد من كريبتو كارنسي إدد بين هذا الليجن أنا هذا واحد ويا كوين ما سمين كرنا كدينا وصول استكرين كرنا مركا كونك مركو عصبي هاي عندما تقانو دي وكون هذا الشيء ويا مركا ايردروبس كوحو كعاويا كون كادتك اسكاله اني مركو رسيب بلاش كوينن بدن او قيبيان ayagu mataqaana marketing strategy ka wato si uu helo attention community plan mar haduu koonka waxa weeyday community badan helo attention la helo oo qof kasta si free oo ku qaadanay si free waxa lagu qaadanaya ma ogid berri ama next year ama waxa weey laba sano kadib koonka inuu qiimo yeelay saxabal koonka loo yaqaan XRP waxa lagu bilaabay waxa weeye airdrops baa lagu bilaabay dad waxa jiray markuu soo baxay airdrop ahaan runtii u soo qaatay mar dambana lacag badan ka sameeyay inkastoo hadda uu waxa weey ka tirto oo mar laakiin senti 0.00 baa laga soo bilaabay marka airdrops-ka faa'iidooyin badan buu leeyahay marka meelo gooniyana oo laga helo way jirtaa airdrops-ka waxaan marka insha Allah inaan kula sheego طبعا أكيد باينس وكليه ولا جه النيوز كقيمة النيوز كوسوق الشيء وكل إدروس بلا سوق الشيء وحوي ندي أد إنترست جرينيس وحوي فالو جري بيج كذا وحوي هالكاس ولد كذا دي طبعا سيل عت كوسوق جالسة وبسيدي اللي هن وحرام مقال كأنه هو لو ده وبسيد كاس واحد جالسة public address كذا private address كذا ولا هذه قاب ساك برا الله هالكاس على صدري شروطه شرقار قانا شروطه مجنون مركز سحب الدمين جول كل هن قليها إسكال كونك وحوي أقيبيني وحوي إني هلان new followers waxa way attention ka social media gaar ahaan community waxa way cryptocurrency inay helaan inta hadii helaan dabcan result-go filayan waxa way koonka dad badan soo galaan qof kasta oo okay koon baa soo baxay airdrop baa soo baxay laga faa'iideysto waxay saameynaysaa marka waxa market cap-kooda oo laga yaabo dad toos waxa way in mataqaana sanad socda ee toos u gataa marka lacag ka dhigaan la gato maadaama dad badan ay haysta marka ayaga goolkooda u weyn waa attention kaas community-ga raan si ay u soo caansaaraan marka waa win situation qoliyaha iskana koonkooda waa la baranaya dad badan maqsud bini adigana crypto free ah marka waa win situation okay types of airdrops and isla fiirin midda koowaad waxa la standard airdrops baa laha dabcan waxa ku siinayaan waxa weeye tan standard wax shuruuda ayadu ma lahan si free ah ba u qaadanaysa ama waxa tagaysa website-kooda meel bay leeyihiin halkaas waxa dhigaysa public address-kaaga waa claim garaysa idin waxa way wax shuruudo kugu xirayaan standard airdrops baa la taas talaban saaxib waxa la point airdrops baa la tan shuruudaha ku xiran inta aan lagu siin airdrops-ka waxa kugu qasbayaan in waxa way social media-hooda soo follow garaysa hadii Instagram ni hadii Twitter leeyihiin waxa ku leeyihiin soo follow garay shuruuda labaad ee kugu xirayaan waxa kamid ah saaxib in aad share garaysid post-yadooda waliba dadka influencers-ka baytan aad ugu xiraan hadii qof caan tahay community crypto ku dhex jiro kale waxa ku leeyahay okay intaas ku siinay laakiin noo share garay crypto waxa way post soo dhigo tweet ka samee ama waxa way referring friends oo ama saaxiibada waxa way ina u refer garaysid ee ku dhan waxa way okay link-ga qaado dad badan noo keen refer link-ga wuxuu sheegaya how many people badi waxa way adiga keentay uu sheegaya mataqaana users-ka ama active accounts-ka waxa way samaystay
مش marka tan shuruudaha ku xiran wayna ka lacag badan tahay dabcan waayo maadaama waxa shuruudaha dadka mostly bounty lagu xiro waa dadka social media caanka ka ah oo influencerska ayaga mataqaan aad u fiican baa la siinay laakiin mid standardka iska basic weeye wax shuruudo kugu xiray akoonka baad dhiganaysaa waladkaaga adresska baad dhigan qaybta mataqaan public adresska idana waxa weeye saasaad ku follow garanaysaa hawlahooda qaybteena saddexaad how to participate sidee marka oo qayb qaadanaysa kooda waxa weeye wallet address website-kooda baad tagaysaa meel waxay leeyihiin saaxiibayaal markasta la soo dhigo section bay sameynayaan aad ku basic garanaysid public adresskaaga dabcan waxa loo jira private address iyo public address baa jira cryptaha dabcan koorsadan ka sameynaa wax badan aad ugu sharaxnaa weliga ha bixin private address ka weliga ha bixin hadii aad private address ka bixisid waa ku dhamaatay qofkaasi helay private address ka wuxuu access u leeyahay toos intuu cryptaha u tago inuu lacagtaada waxa mulkiyeedida ownership-keeda oo qaataan hadii aad fahansanaysid saaxiibayaal public iyo private dabcan hadaa muuqaalka ku sharaxay dhinaca laakiin mar baan ka soo hadlay ama koorsadeeda waxa weeye waa ka soo baran kadhaa exchange-da waxa weeye centralized ka ah sida Binance iyo crypto.com ku siin mayaan private key-ga ayaga ku haynaya kaliya public bay ku siinayaan su'aal hadii aan kaas iyo wallet loo yaqaan MetaMask wallet waa saaxiibayaal waa wallet decentralized weeye marka asaga private address ka toos ba ku siinaya ayaga KYC kuma weydiinayo KYC waxa la hadiyay Binance marka iska diiwaan gelinaysid iyo mataqaan crypto.com KYC bay ku diinayaan ka soo laha magacaaga addresskaaga passport-kaaga ID-ga bay ku weydiinayaan waayo waa centralized exchange way binaadam ba iskale access kaas daatada guud laakiin marka waladyada decentralized ka sida MetaMask waxa ka soo weydiisay waa decentralized wax information ku weydiin mayo password magaca password kaliya baad gashanaysaa iyo access then waxa ku siinaya private key weliga private key-gaas insha Allah mar gaar baan ka soo hadli doonaa 10 ku saabsan decentralized exchange waxa kala duwan yihiin qodobka labaad si xabal sida aad oo qayb qaadan karto airdrop waxa ka mid registration marar qaar waxay ku leeyihiin libax formka buux isdiiwaan gal marka you need mataqaana to follow waxa weeye their process magacaaga aad qortid waxa weeye social media aad follow galaysa shuruudahaasna aad buuxsada si loo qadan qodobkeena saddexaad saaxiib waxa weeye follow requirement shirkadaha bixinaya mashruucan ama coinka airdrop tan u bixinaya kuwa kamid ah shuruudii kugu xirayaan oo mataqaana inaad requirement aad complete galaysid bay ku diinayaan sida mataqaana social media wada page ila follow gelisid iyo mataqaana join communities kooda ila ku soo biirtid hadii group leeyahay Discord oo kale ina ku soo biirtid marka shuruudahaasna waa ina buuxsaa hadii aad ila ka qayb qaadato qaybteena saddexaad marka waxa la benefits of airdrop waa maxay marka faa'iidada ku jirta airdrop kow waxa way saaxiibal free coins dabcan de cryptocurrency free hadii lagu siiyay chance XRP dad baa waxa weeye si free xilliga airdrop ahaan u soo helay maanta dee waa dareemi kartaa XRP waa coin aad runtii u balaaran inkastoo meesha laga rabo soo joogin hadana dad baa waxa weeye maanta cost uu jooga 00 dad baa ka soo raacay waliba si free ah ku hela marka airdrop dad baa ka qaraabtaba adiga waxa laga yaabaa coinka marka Binance la keenay iyo crypto.com iyo mataqaana Coinbase iyo marka ina ku baraarugtid oo de lacag fiican marka xataa oo marayo inkastoo uu raqiis ka yahay marka loo fiirin dhankaas laakiin dad baa jiro hoos ka soo raacay xitaa asoona airdrop ahayn dad baa jiro exchange-da mataqaana decentralized ka ah ka soo adeegto hadii noqon mataqaana Uniswap iyo PancakeSwap iyo because exchange-da waaweyn oo waxa weeye centralized ka coin badan kuma jiraan waliba coin-ka markuu cusub yahay lagu soo daro dad baa jira marka ka shaqeysta meme coins waxa loo yaqaan iyo airdrops ka lacagaysta jiro runtii aad uga faa'iiday saxbel faa'iidada labaad waxa weeye community engagement waxa lagu leeyahay dabcan gruubyada baa tagaysaa update badan baahanaysa sidoo kale awareness badan waa leedahay oo koonka waxa weeye hadii oo koon caan noqdo faa'iidada ugu weyn adaa haysa waliba airdrop baa ku heshay free ah baad ku heshay okay qaybtan waxaan ku fiirinaa saaxiibayaal risks to consider dabcan wax kasta qasaare leeyihiin waliba airdrop-ka aad baa la soo dhacaa sababta aan ku sheego qaar baa waxay isku dayayaan coin binance sameeyaan ku dhaw okay airdrop baa ku siinayna noo soo dir private key-gaaga saan ku sheegay weliga private key-gaaga lama bixiyo laakiin hadii aad Binance iyo crypto isticmaalaysid arkimaysa private key-gaaga just public address-kaaga ba markaas arkaysa public address-ka dabcan waa bangi number-ka oo kale weey hadda lacag ku soo diriyo bangiga is dirisoma ama number baa is dirisa waa public key baa la kaas private key-ga waa password-ka qofku weydiiyo weey marka qaar waxa isku dayayaan inay ku weydiiyaan saaxiibayaal waxa weeye private key-gaaga which mataqaana qatar hada bixisadii aad fahamtay crypto wallet-ka waa loo daaday marka iska ilaali iskaan badan buu leeyahay airdrops scams badan baa jira fake combe sameeysanayaan adigii hadii aad fahansaneen marka waxaan waa lagu dhacaya dabcan chapter weyn baa uga helo oo koorsada ku saabsan dhammaan scamska la iskaga ilaaliyo hantida cryptocurrency aad iskaga ilaalinayd fursadahan aad ka faa'iideysan aad sameeytaan aad riskiga iskaga ilaalinayd saaxiib hadii aad jeceshay inaad baratin dabcan koorsada cryptocurrency dabcan website-ka galabashadcom ka soo dalba ama numberka telefonka ka soo dalba wax fiiskana sama la xiriir waa crypto bil ilaa dhamaad af Soomaaliya waliba qaybta investment-ga weyn saaxiib marka ugu dambeeytii airdrops-ka waa muhiim weey halaga faa'iideysan insha Allah waa qayb kamid ah cryptocurrency waliba si bilaash loo helo way marka concept-ga hadaan maqashay airdrops oo maskaxda ku soo dhaxdo I think inaan fahansata faham fiican ka heshay dhamaan saaxiib aad baa islaamiya waa mahadsantiin